kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel ka soo aad naga daawanaysaan halkani waa dhambalka dunida waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena falanqaynta wararka galabnimo waana galabnimo Arbaca taariikhda ayaa ku astaysan 2 bisha 10 Oktoobar sanadka 2024 qodobada xiisaha leh barnaamijkeena falanqaynta wararka galabnimo aan ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta magaalada Muqdisho xilka uu kala wareejiyay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya General Sulub iyo sidoo kale taliyaha cusub ee la magacaabay General Asad Ismaan Diyaano hadaba qodobada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu ka jeediyay halkaas ayaan daawadayaal barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee barnaamijkan ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doona madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho soo wata askar fara badan iyo ilaalo aad u badan hadaba maxay tahay kalsooni darada inta leeg oo Laftagareen ka qaba dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya falanqayn ayaan daawadayaal ku eegi doonaa arintaasi qodobada kale ee barnaamijka ku maqli doontaan waxa qayb ka noqon doona xiisada bariga dhexe oo markii ka sii daraysa magaalooyinka waaweyn Israa'iil oo gubanaya sidoo kale gantaari ugu dambeeyay ee Iran ay ku garaacday magaalooyinka Tel Aviv iyo sidoo kale magaalooyin kale oo waaweyn oo ka tirsan dalka Israa'iil qodobadaasi wuxuu nagu soo kordhay Soomaalida caalamka ku saabsan ayaa daawadayaal ku maqli doontaan barnaamijkan intaan hawada ku jira soo saarista tabinta waaniga Adaar Abshir Xasan fadlan waxa ku xusuusinaa daawadayaal haddii aad ku cusubtahay channelkan YouTube-ka dhambalka dunida inaad subscribe soo saartay sidoo kale page-kana Facebook leader man barahana kale bulshada sida X iyo sidoo kale Instagram iyo bartana TikTok u diyaar garooba daawadayaal qodobadaas oo faahfaahsan waa tahay daawadayaal aan ku bilaabanay barnaamijkan falanqaynta wararka galabnimo ee madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho caasimadda dalka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho asagoo markaas wata askar aad u fara badan sidoo kale ilaalooyin aad u badan oo markaas uu sheegay inay ilaalinayaan ammaankiisa guud madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa dalka looga baray inay magaalada Muqdisho ay yimaadaan si marka ayagoo markaas wata ilaalo aad u fara badan xagga markii magaalada Muqdisho ay soo gaareen ammaankiisa ay sugto dawladda federaalka Soomaaliya laakiin taas bedelkeeda maanta waxa sameeyay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen oo askar fara badan ka soo daabulay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaalka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale dawladda dhexe federaalka Soomaaliya ayaa bariil soo dhafay waxa ka jiray khilaaf aad u ba'an oo markaas ka dhashay joogitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada Bay iyo Bakool waxaana dawladda Koonfur Galbeed ay markaas waxaana sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed uu taageeray in markaas ciidamada Itoobiya ay joogaan isla markaana aan loo baahnayn xilligan ay ka baxaan dalka Soomaaliya inta wixii ka dambeeyay waxa jiray khilaaf aad u ba'an walow markii dambe khilaafkaasi hoos loo qaboojiyay oo markaas la dhexdhexaadiyay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa u yimid magaalada Muqdisho si uu kaga qayb galo shirka wada tashiga qaran oo maalinta Sabtida la filayo ka furma magaalada Muqdisho sidoo kale magaalada Muqdisho waxa la filayaa inay soo gaaraan madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Galmudug waxaan sidoo kale shirkan aan qayb ka ahayn isla markaana ka soo qayb galayna madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ayagu markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud labadii jeer ugu horeysay markii laga reebo inta kale aan ka soo qayb galin waxaana arinta loo sameeyay khilaaf baan markaas kala dhaxaya dawladda dhexe federaalka Soomaaliya wixii warar ku soo kordhay daawadayaal shirkaasi barnaamijyadan daba ayaad ku daawan doontaan waa hagaag daawadayaal bal markaan haddaan eegno ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta magaalada Muqdisho xilka uu kala wareejiyay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya General Sulub iyo sidoo kale taliyaha cusub ee la soo magacaabay General Asad Ismaan Diyaano ra'iisul wasaaraha ayaa taliyaha cusub kula dardaarmay inuu markaas si dardargeliyo isla markaana wax badan ka qabto ammaanka guud ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho sidoo kale ra'iisul wasaaraha wuxuu ammaan kala dul dhacay taliyihii hore ee General Sulub asagoo sheegay intuu xilka uu joogay inuu wax badan ka qabtay caasimada dalka iyo sidoo kale ammaanka guud ee magaalada Muqdisho waxa uu sheegay taliyaha cusub inuu halkaas ka sii anbaqado isla markaana looga fadhiyo inuu markaas ammaanka guud ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho uu markaas si weyn u adkeeyo ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale wuxuu kala dardaarmay ciidamada booliska inay adkeeyaan isla markaana la bijibaaraan hawlahooda qaran oo ku aadan ammaanka guud ee dalka iyo sidoo kale in ay ka sifeeyaan magaalada Muqdisho meelaha hubiyaasha laga soo taayay argagixisada ay ku dhumaalaysanayaan وحقاق داود يلا بالمركان هداقنا وقدمينتي حالة بريقة ديحو مرمى مركي كسي دنبسا كسي داريسا إيران waxay laba jibaartay duqeymaha kala duwan ay ka geysanayso gudaha dalka Israa'iil xalaayeed markii ka badan 250 gantaala ay ku weerartay magaalada Tel Aviv caasimadda dalka Israa'iil waxayna sheegtay in ay Iiraan
in ay sii wadi doonto gadaalaha iyo sidoo kale duqeymaha kala duwan ay ka geysanaysa dalka Israa'iil sidoo kale waxay ku anjabtay inay ka falceli doonto isla markaana ay ka argudo doonto gantaalahan kala duwan kaga imaanaya dalka Iran sidoo kale dhanka Lebanon ayaa laga soo tuuray gantaalo kala duwan oo lagu garaacay dalka Israa'iil magaalooyinka waaweyn Tel Aviv ayaa dhamaantood isbila gubahanaya ayadana markaasi gantaalaha ay kala joogsiga lahayn ay ku garaacayeen Iran iyo Lebanon marka kasi dambe ay ka sii darayaan sidoo kale Iran ayaa tan iyo markii la dilay madaxii ururka Hamas Ismaaciil Haniya waxay ku hanjabaysay inay ka argooso doonto isla markaana ay u soo argudi doonto Ismaaciil Haniya hase ahaatee xalay ayay talaabadii ugu horeysay qaaday in ka badan 250 gantaal ay ku weerartay magaalada Tel Aviv caasimadda dalka Iran رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو يستوكل وزيرada iyo taliyaasha dadka Israa'iil ayaa la soo warinayay in lagu la cararay god dhulka hoostiisa ku yaala ayadana gantaalo ay kala joogsan lahayn afarta gees ee magaaladana isla gubanayso intaas ayaan daawada ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena falaqeynta wararka galabnimo soo saarista tabinta wararka daaray Xasan Fadlan YouTube-kana hadda ku xusubtay dhamalka dunida subscribe saar sidoo kale page-kana Facebook la dhamaanay sidoo kale baraheena bulshada ayaa daawada nagala socon kartaan tan iyo barnaamij cayn kala kala inta ku kulmina malta bariya akhiir waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh